iskool nidaamiga dhammaystiray lang skills oo ambaano isku fakki kor intaan noqdo fare jaamacada san wala isku dhiibadaan wala hel oo aan iska dibir kor أنا وين بدي هي أنت بياس توبر أو حرفة إيه مركز كنت وين بس هذا إيه حرمت سيدي بعهد أنا هذا مركزيتي أنا حرفة برودكش أنا أنفضاي أنا شيء كذي علمي قاعد بحسه وحبرشة أنا نقوي ما أنا وحبرته أقوانت هذا أنا مارتي أنت إلهي كيس مارتي وقرب قوتي أنا marka ma sha Allah waa ku guuleystay badanna in arday badan la ku waraysaday way ba ku ibnaga ardayda ku guuleysatay iyo xirfadaas ku faa'iideysatay. There were 3 courses that we were targeting: tailoring, electrical, and plumbing. The TVET project is an integral part of the African Development Bank funded urban water supply project, and its scope is intended to support underprivileged youth than skilled youth members, to capacitate them and enable them to at least have skills that will make them earn a living. The need for capacitating and providing technical vocational training skills to the underprivileged and marginalized was an idea that came through the consultative forums that IOM held with the Youth Ministry as well as the Ministry of Water and Energy Resources. waxaa ka soo bartay korontada xirfadda korontada sida loogu shaqeysto sida aad qof walaalka uga caawin karto waxa weeye adna aad ugu shaqeysan karto familkaaga xaaskaaga korontada wali in shal bahasa wali kala salan suubiyo noocyal iyo wali dad gubow shirkad galo waa dhan lahay bari عشرك أعلاني أركو تولينت سبب أركو أدمر كو أمركاسيتي الهيسة وأربع أركي إنكدم بوي أمركاسيتي عباسي عن أمبرده أو عن أمطار. كورسو أمتير كذانا ولا نبرة تبدأ شنترال قوميته ترانكوارتا مرة رايبة قاب أو مرة رايب جيل شرق بدو مغاي ولا جيل ولا نشل بري حتى ما ناوري مرة رايب ميديا حتى تبدأ كقطوم مخارلا وتي ولا هنا صوبيانا. The course duration for each was 6 months. Gladly, we had 50% of the project participants were female, and all of them managed to graduate. Apart from the course facilitation, IOM was also providing incentives for transport that now contributed to the project beneficiaries to always avail themselves in classes. قبل بالمستقبل مركز اللي يبقى بقيلة أنتي وسير حرفت ولا وسير حرفت أنا هذا حرفتهم شرقان كأن حرفت أو معصم مرول مرول سياتنا وورمس أنت كجران واعي أو دمير بسيات كوشك أي سلاسة. There was employability training model in the project. Immediately after the graduates completed the courses, we made sure they get internship, and then we attached them to public-private partnership institutions. There are those who had the privilege to start their own businesses also after we gave them the startup grants. Most of the graduates are now working, and they are earning a living today from what they have learned from the classes. markii hore aan idris ku jiifay lan oo hata ka saaymalaan baa muddaas ka ilaan baa muddan lan jeelmala hatta maadaama aan baradi maadaama aan hadda shaqayso qoraa bulshada tii waliba ka helay magac iyo qadarin احترام iyo in hayaan maadaama aan markii hore baan ku helnay intii aan sharqaan aan toona hadda markii aan tababar dhisi in ku fuusaaday intii aan business aan furado meelun aan hadda shaqaysaday amal aan furado oo aan hadda geed nolol maalmeedka aan ku weydiisado oo hadda ka shaqaysan. Replicating the same, expanding similar projects to the other districts is also very essential. We have youth in the hard-to-reach areas who don't have access to these basic literacy and skill services. So providing them or extending them similar services is something that is demanding. tababarkee saameyn badan oo noloshayda ku yeeshay hadday noqoto mid oo dhaqaale oo maartay familkii iyo dadkii adu oo kale hadday noqoto hadday aniga shakhsiyaantayda noqoto adu hadba cidii maartay aan ka caawin karo oo kale wax fara badan noloshayda maartay wax badan u ka bedelay.